sidaad wararkaba ku maqlayseen milatariga dalka suudaan ayaa xukunka ka tuuray madaxweyne cumar xasan axmed al bashiir kadib 4 bilood oo ay socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo xukunkiisa 30 jirsaday. warbixin ay milatarigu kasii daayeen telefishinka dowladda suudaan oo uu akhrinayay wasiirka difaaca ee dalkaasi cawad maxamed axmed ibnu cawf ayaa ku sheegay in 75 jirka la xiray oo meel ammaan ah uu ku sugan yahay. milatariga dalka suudaan ayaa goordhow sheegay inay casileen madaxweynaha dalkaasi cumar xasan al bashiir islamarkaasina ay ku hayaan meel aamin ah waxayna sheegeen inay talada dalka ay la wareegeen golaha sare ee ciidamada qalabka sida ee dalkaasi. wasiirka gaashaandhigga dalka suudaan cawad bin cawf oo akhrinayay bayaanka koowaad ee ciidamada ayaa sheegay inay dhacday guud ahaan dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne cumar xasan al bashiir islamarkaasina in talada dalkaasi kumeel gaar ah uu u haynayo golaha sare ee milatariga dalkaasi muddo 2 sano ah. dalka waxaan ku soo rognay xaalad degdeg ah muddo 3 bilood ah iyo bandow soconaya muddo bil ah ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga ahna sarkaalka ugu sareeya milatariga waddankaasi. dhinaca kale warka ka soo baxay ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in la laalay dastuurka dalkaasi islamarkaasina la kala diray golaha wasiirada, golaha baarlamaanka iyo guud ahaan maamulada gobolada ee dalka suudaan. milatariga ayaa ka cudur daartay tacadiyada ay geysatay dowladdii al bashiir waxa ayna ballan qaadeen inay sugayaan nabadgelyada dalkaasi. arrimahan ayaa imaanaya xili kumanaan ka mid ah dadka magaalada khartuum caasimada dalkaasi ay isugu soo baxeen wadooyinka iyagoo u dhaqaaqay xarunta ciidamada milatariga halkaasi oo dibadbaxyaasha ay hordeganaayeen tan iyo maalintii sabtida. sidoo kale shaaracyada waaweyn ee magaalada khartuum iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi ayaa lagu arkayay dibadbaxyaal iyo gawaari u dabaaldegaya in kursiga laga tuuray madaxweynaha dalkaasi. sidoo kale ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ayaa adkeeyay sugidda amniga guud ahaan magaalada caasimada gaar ahaan dhismayaasha dowladda iyo madaarka caalamiga ah ee magaalada khartuum. wararka ka imaanaya dalkaasi ayaa sidoo kale xaqiijinaya in la xirxiray saraakiil sarsare oo u dhowaa madaxweyne al bashiir islamarkaasina ciidamada ay amreen in xabsiyada laga sii daayo guud ahaan maxaabiista siyaasiyiinta ee ku jira xabsiyada waddankaasi. warbaahinta suudaan ayaa sheegtay in la hakiyey diyaaradaha ka duulayay ama ka soo degayay garoonka caalamiga ee magaalada caasimada ee dalkaasi. ugu yaraan 22 qof ayaa lagu dilay isku dhacyo dhexmaray ciidamada iyo dibadbaxyaasha sida ay sheegeen kooxaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada. dibadbaxyada dalka suudaan ayaa bilowday 19 Diseembar sanadii 2018 kadib markii shacabka dalkaasi ay u adkeysan waayeen sicir bararka iyo qalalaasaha dhaqaalaha ee ka taagan dalkaasi. cumar xasan al bashiir oo 75 jir ah ayaa dalkaasi xukumayay muddo 30 sano ah isagoo afgambi ku qabsaday dalkaasi sanadii 1989. dhinaca kalena al bashiir ayaa afgambi islaami ah xilka kula wareegay sanadkii 1989 bishii February 22 sanadkan ayuu xaalad degdeg ah ku soo rogay dalkaasi isagoo isku dayayay inuu damiyo banaanbaxyada lagaga soo horjeedo xukunkiisa oo ay xukuumaddu sheegtay inay ku dhinteen dad gaaraya 30 qof inkastoo kooxda dhaqaatiirta ee xuquuqda aadanaha ay tirada geeriyootay ay gaarsiiyeen ugu yaraan 60 qof. haddaba halkaasi iyo waxa ka socda iyo iscasilaada al bashiir waxay uga dhigan tahay suudaan iyo gobolka ayaa waxa xuseen bare uu ka wareystay xasan xundube jimcaale oo muddo ku noolaa suudaan kana soo shaqeeyay. wallahi arrintaasi aad iyo aad saameyn xoog leh u yeelan kartaa sababtuna waxay tahay suudaan cumar xasan al bashiir wuxuu ka talinayay muddo 30 sanadood ah 30 sanadood waxaa dhahay isbedel aad u fara badan oo ay ugu weyn tahay inuu waddanku kala go-ay oo ay kamid tahay in daarfoor dagaalo culus ka dhaceen oo ay soo farageliyeen adduunku soo farageliyey oo ay kamid tahay in meelo badan oo hadda kamid ah suudaan oo meesha la yidhaaha niilka buluuga agagaarkiisa iyo kurdufaan iyo ay jiraan xoogag weli dowladda ku kacsan ay jiraan gudaha marka loo soo noqdo caasimada iyo agaarkeeda iyo waqooyiga iyo dhulkan dhexe oo inta badan madaxda suudaan ay ka timaadaan ay u kala qaybsan yihiin axzaab kala duwan oo xukunka isku haysata oo haba ugu weynaadaano xisbiga saadiq al-mahdi oo kala jajaba laftiisu iyo xisbiga marqani itixaadi loo yaqaano iyo xisbiga xasan firaadi laftiisa oo loo yaqaano mu'tamar shacbi oo intaasoo dhan waxay ahaayeen kuwa siyaabo kala duwan
qaabka wax u socdaan intaas diidanaa oo bulshada suudaanna saameyn xoogan ku leh. marka runtii waxa waaye inkasta oo dadka suudaan ay yihiin dad aada iyo aad u degan oo caadifadoodu ay ka yar tahay oo qabiilkuna ku yar yahay, waxbarasho badan iyo aqoon badanna le, beeraleyna u badan, oo dadka reer guuraaga oo aysan ku badnayn oo inta badan qalalaasaha kiciya. haddana taasoo jirta waxaan isleeyahay culays badan baa imaan doona, laakiin inay maareyn karaan reer suudaan sidaasay ila tahay. mustaqbalka dhow maxaa la saadaalin karaa inuu ka dhaco siyaasad ahaan dalkaasi suudaan? ma sahlanaan doonto in la helo waxaa la yidhaahdo heshiis loo wada dhan yahay in la helo, ma sahlanaan doonto. waxaa kaloo dawlado waxaa jira saameyn ku leh wadanka suudaan, masar ha u horeyso, kuwa diriska ah oo kaleeto wadanka jaad oo kale waxaa isku jira bulshada jaad degan iyo kuwa degan suudaan waxay isleeyihiin iskal xoogan oo qabaa'il isku mid aha meesha degan. dhinaca eritrea sidoo kaleeto iskal xooganay ku leeyihiin, qabaa'il waxaa jira labada dhinacba degan. waxyaabahaas oo dhan marka waxa waaye saameynay ku leeyihiin. waxaa kaloo saameyn ku leh arrinta adduunka oo hadda waxaa cumar xasan albashiir waxaa lagu kacay markii uu suuriya kasoo noqday maalmo kadib. hadeerna waxaa muuqata ruushka inuu waxa suudaan ka socda ou isha ku hayo oo u arko in asaga iyo suuriya booqashadii uu ku tegay suuriya cumar xasan albashiir ay ka timid colaadaano oo dawlado shisheeye ay laku leeyihiin. marka suudaan ma sahlanaan doonto arrintoodu, laakiin waxaan isleeyahay dadka suudaan oo inta badan dad degan ah oo wada hadalka iyo inay wada hadlaan u fududahay inay si sax wax isugu sheegaan. marxalad adag waa mari doonaan aada u culus, laakiin inay ka gudbi doonaan oo aamsana. san ka warqabno madaxweynaha suudaan waxaa baadigoobaysaa maxkamadda adduunka, mustaqbalkiisu halkuu ku dambeyn doonaa? waxay ku xiran tahay ciidanku sidau u fikirayo. hadda ciidanku inta badan fili maayo inay hadda cumar xasan albashiir ay inta ay joogaan inay dawlad maxkamadda adduunka u gudbinaan fili maayo inta ay joogaan. laakiin haddii dawlad ay timaado oo dawlad rayid haddii ay timaado mustaqbalka, ma aqaano sida wax u dhici doonaan. waxay ku xiran tahay haddii dawlad culus oo sida sacuudiga oo kaleeta ah oo ixtiraam ku leh dawladaha reer galbeedkuna ay ixtiraamayaan oo kale, arrintaas ay soo farageliso, ama masar oo kaleeto ay soo farageliso oo maalmaha inta badan aada u jecleeda xukunka inuu sii joogo qof ciidan ah oo ciidanka masar haysta aada wuxuu u danaynaya in xukunka ay sii joogaan dad ciidan ah, walow ay diidanaayeen ururada oo diinta oo akhwaanka iyo wax lamid a. marka haddii dawladahaas oo kaleeto ay cumar xasan albashiir ay rabaan inaan gacanta loo gelin maxkamadda adduunka, waa laga yaabaa in laga fakado. laakiin haddii dawlad madaniya timaado oon aada culays badnayn, waxaa dhici karta colaadihii lasoo maray iyo xumaantii lasoo maray iyadoo la fiirinayo inay khatar u tahay in arrinkaas oo kale u imaan karo.